FBI, CIA, NSA maxaad ka taqaanaa saddexdan wakaaladood ee loo daba fadhiisto xalinta dhacdo kasta oo baadhitaan u baahan? Waa maxayse shaqooyinkooda ku kala aadan dambi baadhista? Waxaan idin hayaa macluumaad kooban oo ku saabsan wakaaladda dambi baadhista ee Ameerika. Ka hor inta aanan bilaabin, fadlan subscribe saar channelka haddii aad nagu cusub tahay, si aan ugu dhiirano soo gudbinta arrimaha noocan oo kale ah. Wixii ra'yigaagana noogu reeb kommentiga. Wakaaladaha FBI, CIA, NSA dhammaantood waxa ay hoos yimaadaan xukuumadda awoodda badan ee Ameerika. FBI waxaa loo soo gaabiyey Federal Bureau of Investigation, oo macnaheedu yahay xafiiska dambi baadhista ee federaalka ah. Waana hay'ad ay ku midoobeen askarta federaalka ah oo hoos timaada wasaaradda cadaaladda Ameerika, shaqadeeduna tahay xaqiijinta dambiyada dilalka halista badan. Waxaana la aasaasay wakaaladdan sanadkii 1908, taasi oo uu fikirkeeda lahaa Charles Plummet oo u bixiyey xafiiska dambi baadhista. Balse sanadkii 1935 waxaa magaceeda wakaaladani loo bedelay xafiiska dambi baadhista ee federaalka ah. Xafiiska ugu weyn ee FBI waxa uu ku yaalaa dhismaha Edgar Hoover ee magaalada caasimadda ah ee Washington, halka 56 xafiis oo waaweyn ay ku leedahay dhammaan dalka oo dhan, iyo weliba 350 xafiis oo maxalli ah. 60 xafiis oo kalena ay ku leedahay gudaha safaaradaha dalka Mareykanku uu ku leeyahay dalalka jaarkiisa ah. CIA waxaa kelmad ahaan loo soo gaabiyey Central Intelligence Agency, oo macnaheedu yahay xafiiska wakaaladda warbixinta. Waana wakaalad Mareykan ah oo xukuumaddu iska leedahay, oo qaabilsan soo ururinta xogaha dadka, xukuumadaha iyo wax kasta oo ka dhaca dalka dibadiisa, una gudbisa laamaha ammaanka. Xafiiskeeda ugu weyn waxa uu dhacaa Fairfax Langley ee magaalada Virginia ee ku taxan webiga Potomac. Sidoo kale, CIA waxa ay caawisaa dhammaan wakaaladaha wararka Ameerika ee kale, iyadoo u gudbisa macluumaad ku saabsan ammaanka shacabka ka hor inta aanay u gudbin siyaasiyiinta go'aanka dalku ka soo go'o. Wakaaladdan waxaa la aasaasay sanadkii 1947 kadib saxiixii madaxweynihii xilligaasi talada dalka hayay Harry Truman ee ku saabsanaa sharciga dalkaasi. NSA waxaa loo soo gaabiyey National Security Agency, oo macnaheedu yahay wakaaladda ammaanka ee shacabka. Waana wakaalad xog uruurineed oo hoos timaada wasaaradda difaaca Ameerika, isla mar ahaantaana hoos timaada isla iyo maamulkooda. Wakaaladda shaqadeeda ugu weyn waxay tahay dabagalka xogaha iyo macluumaadka, warbixinta ajaanibka iyo warbixinta guud ee dalka. Sidoo kale waxay u xilsaarantahay ilaalinta shirkadaha isgaarsiinta ee Ameerika. Wakaaladdan ayaa la aasaasay sanadkii 1952, waxaana fikirkeeda lahaa madaxweynihii Ameerika ee xilligaasi Harry Truman, iyadoo xilligii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka ay u shaqayn jirtay si sir ah. Kadibna waxa ay noqotay wakaaladda xog ururinta ugu weyn Ameerika iyo caalamka oo dhan, iyadoo isticmaasha hababka basaasnimada ah ee lagu ogaado macluumaadka ku jira ama ku kaydsan telefoonada gacanta iyo weliba kombiyuutarada ay dadku isticmaalaan. Sidoo kale, NSA waxay isla shaqeeyeen CIA oo iska caawiyaan ilaalinta goobaha muhiimka ah marka ay kala joogaan dowlado kala duwan, sida qasriyada iyo safaaradaha ammaankooda la sugo. Xafiiskeeda ugu weyn waxa uu dhacaa magaalada Maryland, halka mid ka mid ah shaqaalayaashii u shaqayn jiray NSA xilligii uu baxsaday dalka Ruushka, isla markaana uu la kulmay TV laga leeyahay dalka Ingiriiska, uu shaaca ka qaaday macluumaad sheegaya in ka badan malaayiin dad ah oo wakaaladdan ay gacanta ku hayso sirahooda khaaska ah iyo xogaha dhanka internetka ay isticmaalaan. Haddaba, ma is odhan karnaa sirdoonka wakaaladahani waa qaar si fudud ku heli kara xog kasta oo la iskaga gudbiyo hawada amaba dhex marta telefoonada gacanta iyo kombiyuutarada aynu isticmaalno?